dalka Ingiriiska ayaa ku biiray wadamada daneynaya inay saldhigyo militari ka samaystaan Somaliland. Dowladaha Imaaraadka iyo Ruushka ayaa hore u soo bandhigay qorshayaal ay ku damacsan yihiin inay saldhigyo militari kaga samaystaan deegaanada xeebaha badda cas ee Somaliland oo ah marin muhiim u ah badeecadaha iskaga goosha caalamka. wasiirka difaaca dalka Ingiriiska Gavin Williamson ayaa dhamaadkii sanadkii 2018 shaaca ka qaaday in marka Ingiriisku ka baxo midowga Yurub uu saldhigyo militari ka samaysan doono meelo kala duwan oo ka mid ah dunida. waraysi uu siiyay wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayuu Gavin Williamson ku sheegay arrintan, balse muu cadeynin wadamada ay damacsan yihiin inay ka samaystaan saldhigyada militari. wargeyska Telegraph ayaa xusay in meelaha ay u badan tahay in Ingiriisku saldhigyo militari ka samaysto ay ka mid yihiin wadamada Singapore ama Brunei oo ah dal yar oo dhaca badda koonfurta Shiinaha. sidoo kale meelaha uu Ingiriisku xiiseynayo waxa ka mid ah wadamada ku hareeraysan badda Caribbean-ka ee badweynta Atlantika. hal wiil kadib markii uu wasiir Gavin Williamson ku dhawaaqay Ingiriisku saldhigyo militari ka samaysan doono meelo kala duwan oo caalamka ah, kuna beegnay 6 bishan January ayuu booqday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, halkaas oo ay ku kulmeen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo sida ay sheegeen ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka Ingiriiska iyo Somaliland. booqashada wasiir Williamson ayaa kor u sii qaaday shakiga ah in Ingiriisku doonayo saldhig militari oo uu ku yeesho dalkan yar ee aan la aqoonsanayn horena uu gumaysan jiray. Ingiriiska ayaa ku biiray wadamada Imaaraadka iyo Ruushka oo daneynaya saldhigyo militari oo ay ku yeeshaan Somaliland. dowladda Somaliland ayaa dalka Imaaraadka saldhig militari ka siisay magaalada xeebta ah ee Berbera, saldhigaas oo hadda dhismihiisu u socdo. dhanka kale dalka Ruushka ayaa bishii Abriil ee sanadkiina dhaafay shaaciyay inuu doonayo saldhig militari oo fadhi u noqon kara askar gaadhaysa 1500 oo askari. saldhigaas oo ay doonayaan inay ka samaystaan magaalada xeebta ah ee Saylac oo dhacda waqooyi galbeed Somaliland. Ruushka ayaa daneynaya saldhigaas oo sida uu sheegay caawin doona maraakiibtiisa dagaalka ee mara gacanka cadan. marinka cadan oo Somaliland ay jaar la tahay ayaa ah marin muhiim u ah isu socodka badeecadaha iskaga goosha caalamka. maraakiibta sanadkii ka gudubta ayaa lagu qiyaasay 21,000 oo markab. ilaa 11% shidaalka caalamka ee badaha la mariyo ayaa sii mara marinkan oo ku xidhiidhiya marinka Suez ee dalka Masar, taas oo kor u sii qaaday rabitaanka ay quwadaha caalamku ku damacsan yihiin inay awoodooda ku fidiyaan marinkan muhiimka ah. Khadar Haybe, Saab TV, Hargeysa.